Mararka qaarkood wax badan ayay naga caawinaysaa inaan beddelno moodalkeena view-giisa ama aragtidiisa, yacni qaabka loo arkayo iyo dhinaca laga arkayo. Waxaa jiraan qaabyo kala duwan oo aan sidaas u suubin karno oo aragtida oo moodalkeena aan ku kala beddeli karno dhinaca laga arkayo iyo qaabka loo arkayo. Waxaana loo yaqaanaa aragtiyaashan kala duwan standard camera views. Waxaana laga dhex heli karaa menu-ga kore camera standard views. Optionada kuu furanna waxaa waaye top, kor, bottom oo hoose, front, back, left, right iyo aragti kale loo yaqaano isometric view. Aragtiyaashan kala duwan waxay naga caawinayaan markaa rabno inaan moodalkeena u suubino aragti ah orthographic view. Yacni orthographic view waxaa ka wada aragti oo waxaa u suubinaysaa moodalkaada 2D ah. Maadaamuu 3D yahay, waxaa u beddelaysaa 2D. For example, waxaa nageysaa menu-ga kore camera keli ku dheh, standard views nagey, top keli ku dheh, aragti oo kor ah. Yacni kor naga tusaa dhexeena moodalkeena. Keli ku dheh. Marka kor looga jeedo, waxaa moodaa inuusan ahayn 3D oo yahay 2D, si in waraaqad lagu sawiro kale hal dhinacun ka arkaysid. Marka aragti kale oo waxaa jirto aan ku beddeli karno kaamirada anaga wax ku eegayno oo SketchUp oo isticmaalayo kaamirada oo qaabkan wax noo tuseyso si oo lagu beddelana way jirtaa. Waxaana loo yaqaanaa parallel projection. Al'aan aragtida ee kaamiradeena iyo qaabkay wax noo tuseyso waxay noo joogtaa oona loo yaqaanaa perspective view. Waxaan u beddelaynaa parallel projection. Bal fiiriya qaabkay noqoto. Waxaana laga dhex helaa menu-ga kore camera keli ku dheh. Sida aragtaan hadda perspective ay noo joogtaa. Waxaa u beddelaynaa aragtida ah parallel projection. Keli ku dheh. Aragtida noocaan ahna kuma fiicno markii aad moodalkaaga asigoo 3D aa hagaysid rabtid inaad ku dul wareegtid kuma fiicno aragtidan. Waxaa moodaa qalqalooc inuu ku jiro. Haddaba waa ka beddelaynaa waxaa u celinaynaa aragtideena hore oo ahayd perspective. Camera tag, perspective.